بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش قيمها له مeel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan waa saaxiibkiin maxamed bashiir xaashi iyo alfanaan mursal maxamed xaamud oo loo yaqaano mursal faladagaan mursal faladagaan oo ah fanaan reer biljim ah oo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada iyo warbaahinta si aad u haystay برنامج كعاو عن كل فقرينا وأيه فلات فنانك ريبل جيم مرسل هاي واحد رئيسين وهيس كم بدأ يساعي صح حاجعلنا هذا كتصدق هيس تلفت كده دو الله يدو Hello baby, hello mono, hello uno, hello baby, hello gili, hello hesa. Ka, udada ka, udada ka. Hello baby, hello mono, hello uno, hello baby, hello Willy, hello Hesa. Ka, laan uka, ka, laan uka. What type? مصحي waxaan leeyahay hista gorma qaadi waxaan qaaday muddo laga joogo adiga 3 isbuuc ayaan socday aan soo diyaariyay aan isku soo dabariday isku soo daba dhacday oo aan ku guuleystay meeshii la rabayna aan saaray marka waxaan leeyahay dadweynaha iyo shacabka taageerayga waxaan leeyahay hore socodkayga hal la socdo واتهي مرسل وحربنا أنا وياها يفنات وحير ضدك أنا سوي دينه صح ضد بدن بقى سويدية وحتى هاي فنان كنتي سد دق كوسو عم بحي مسرح كوسو هري ولي هي سهري فنانين دنتي أما فنانين نول أي كله قيال أذي وقاعدة إلى ما أعرف بل قور ما فنك صوب شيء وياها يفنات أس كاي ماشي كصوب بلاد بالفافين نقصي والله فانك إن مدة جعلي إن صودا قالوا وأنا اسكت حلوجي إن وحن مدة كل حجريبة إن حدا أيان قوشي ربع أنك جاري تاسو يصورتك الشيء مدة لقى جوجو 6 أسبوع وكليها أنت كهر رئيس وان كجري لكن لما إن أقولين إنسان وما شعب حسنين إن لكن هديرتان أيان إنتان هاي أنصو بندقي waxna way dhimayeen wax fara badan oo ay dhimayeen oo isbuucyada idinku soo aadan ama bilaa idinku soo aadan ama sanadada idinku soo aadan ba idinku soo socdo marka wax badan baan waa diyaarsan waxna waa idin soo bandhigay marka saas la aligeed muddo waa ku dhex jira hadda adiga yeeris laakiin hadda ay ii suurta gashay واتهي داوديال
mursal maxamed xaamud oo loo yaqaano mursal folodagan waa fanaan reer biljim ah wuxuu degan yahay magaalada Antwerpen ee caasimadda labaad ee waddanka Belgium wuxuu magaaladan u degan yahay 16 sano waddanka meeqa sano joogtaa 16 sano jooga waddankan Belgium 16 sano Soomaaliga gobolka ugu dambeysay 2001 16 kama intaan joogaa 16 sano fanaanka Soomaaliya ma aanu tagin ma Soomaaliya fanaan ku ahayd bas inta ku noqotay والله فنك واجع لا مركان صومالي جوج لكن فنان مئهن إن لكن وحنا نقضي فنان مدي هذه السنة ده كهر وأنت جوجية ولي أنت ودي جوجم أنا وكلا أبركير أيام فنك عن صدح قلي لكن هذا أي صورة شيء إن عند مستر تو أنت دربي وتحي مرسلو هي سه أتقاد مركب الدعوة لحن وأديك مريه وأديك ليشي أما شعره وأديك موسيقى أد بالله ما وأمانة يبوس واكو سلامة يوسف حسن أجلس واكو سلامة مع شغلة ولا شيء واكو سلامة محمد سيدو بدنا واكو سلامة براه بلشة أد بقى وقبض هرت نيو والسلامة يا وريال وين بقى كهذي داهر على السوق من موسوي اللي عبد القادر محمد فارح دولير اسمها هون كيبل مقدشو عبد الله اسمها فارح اسمها اذا عد عيارها اف ام وهذا تركيا كسوغان عبد محمد اسماعيل عبد العود محمود عرب وريال وين رونتيني ادكو هذا الهي هاد نقيا ان اي ماشي عن وضع باشا الى ودان كو ان ودين اني سرعان ayaan jeclahay marka waa ka waana mahadnaqayaa dhamaantood heestaada kugu horeysay qaaday waxay ahayd heesta la dhaho in dhabta igu haybal dhinac walba iga dhunko Idris Abdulqaadir Maxamed Alteso Idris Alteso awriyash aad runtii awriyash weyn ku jira Soomaalida sax dadka aad u soo jiidatay Sahra Maxamed Ali walaashii Sahra Suusana ورجع سر وايو دنمارك جوكتو سلامي نا سهرو داهر على سو فناكو كسلاميا وكل سو حريري دونا وكل سو هذا داهر على سو وسلامتك بابا ولي دقدقه كنتي فنانين بدن هذا داهر على سو سو سارا جرت هذيك انا سو ساري فنانين waxaa jira wariyal kale soo saareen hadii warbaahinta ay noqon lahayd Universal hadii ay noqon lahayd Home Cable hadii ay noqon lahayd wariyal kale si gaar ah bal heesti kugu horeysay inaan ugu qoysan jeclaan in waatahay heestaas waxaa lahaa dhabta igu haybal dhabta igu haybal dhabta igu haybal dhabta igu haybal dhuuboy dhaxyare dhabta igu haybal dhinac walba iga dhunka dhabta igu haybal iyo ereyo badan oo sii socda hore sii socda waatahay dhabta igu hay waxaan ka dayeynaa inay ku jirto heesti hiiraan waa ujeednaa reer hiiraan baa tahay reer hiiraan baa sax buulaburta ku dhalatay gaar ahaan buulaburtaan ku dhashay waa tahay bal heesaha marka aad qaadaysid sidoo kale si degdeg ah waxa usoo saartay horta meeqa heesaa leedahay wallahi haddeertaan heesaha meesha ku jiro ilaa 8 waayo laakiin 10 kale way ka koreysaa iyo dhowr iyo 10 kale way ka koreysaa oo diyaarsan oo waqtiga uu dhow idinku soo aadan shacabweynaha taageerahayga waxaan u sheegay inay idinku soo aadan yihiin dhawaan marka waa ka halala socdo waa tahay heeso dadka aad u soo jiitaa jira haddii ay noqon lahayd isiisisinta sax waxaa kaloo jiray xararku heesta xararku marka qisooyinkan ma qisooyin dad saaxiibada ku dhacay heesaa ka samaysay ma kuwo adigu ku taabto kugu dhacayba wallahi heesaan waxaa waaye heeso oo la dhaho in wax oo aniga hataa haddaba taabanaya horta ma jiraan oo aan dhahayo taasaa saas u samaysay oo ulajeedadaas ah ka samaysay laakiin waxaa waaye kulligood wax waa dhacayaan aan isdhihi karo ayaan ka sameeyey koobka niikada sax micnee koobka niikada heestan koobkii niikada waxaa waaye hees ka hadlayso in ulajeedadooda waxaa waaye hees oo ah niiko iyo jaceyl iyo waxbay iskugu dhex jirtaa laakiin waxay kusoo gabagaboobaysaa in wax laysla qabto gabar iyo wiil
wada ciyaaraan wada damaashaadaan wax isla qabtaan hore u wada socdaan waa usoo noqon doonaa heesaha dhinaca jacaylka sax sida isku tiinaadiyo jacaylka qof jacaylka maran ma jiro jacaylku waa loo wada furan yahay waana lagu dhashay waana loo dhali doonaa wax ma jeclaata marka adiga si fiican nooga sheekay bal heesta jacaylka gacalisada u qaado oo kale wallahi hadda heesaan gacalisadeeda u qaada ma jirto laakiin heesaha dhanba aan sameeyeyba waxaa waaye wax waa dhici karana aan isdhahay aan ka sameeyey maxaa kamid ah marka hadda heestaan oo kale hadda intaan dhegeysanna bal horta aan yaro dhegeysano heestii xarako soo xarako ya waa hees runtii aad dadka dhan soo jiiday abshir cumar abshiray waa ku salaamay lambarka buuxa muskistaha magaciisa meesha joogo muusikista waxaa la dhahaa cabdisaaq rasda wuxuu ila joogaa magaalada isla wada joognaa belgium ka mid ah oo antwerpen gaar ahaan usii dhaho marka waa kaa marka waana salaamaya halkan waa ku salaamaya si weyn oo waana u salaamayaa waxaan leeyahay jiro joog hore aan usii soconno hore u socod waxaana jeclaa inaan muusikistayaal kale lasii xiriiro oo soomaaliyeed oo aan dhihi karo walle kuwaas waxbay kuu qabanayaan oo wax weyn baa ka faa'iidaysaa heestaan dhegeysanayna حرماي حنانا دقيقي سو حركو السطنو سو هفشو لك سو حركو كمان كان تركم يا حفلة هيسا بدك ما يوبرت على كده مع وليو. حرير روس حمر وسو حركو حكمتي حط أغال حجيابة وصو حركو حقيق دي حرم تجعل وصو حركو intaas hore noo sharaxnaa ma intaas hore hadda xaajiga ugu soo xarako xaliimoy waa maxaa waay hees ka dhigan waa maxaa waay waano iyo wargelin oo gabar iyo odaygeeda ay iswargelinayaan marka waa anigoo xaaskayga wargelinaya camal jaceylka aan wada qabano aan wada hal dhinac aan wada wadno xarakada iyo isturkeyntani ani xaggaygaa soo ahaato ay ula jeedaan ulajeedadoo dhan dhankaasi u socota xaaska u qaday ha may saas ay u dhigantaa laakiin waa fantaasi waa maxaa waaye wax khiyaali waa tahay ugaaska waa ku salaameynaa ugaaska cadde waa reer belgium badan baa jira niyo sax oo korka inay kaa yaqaanaan laga yaabo ugaaska caddaa ku jira professor mustafa axmed dalaal xuseen nin la yidhaha jiro sheekh maxamuud oo raanti warbana ah waa tahay idris waa ku salaamnay alteso walaal sir waa ku salaamnay waxaan jecel lahay cabdifataax qoor dheer waa ku salaamay taliya yaasiin nuur khayre yaasiin geley waa ku salaamnay ubos halgamaa sare cadnaan cabdi xaashi walaal sir waa ku salaamnay su-aalihiina fanaanka aad qabtaan waa soo weydiin kartaan waa weydiinayna ka jawaabaysa su-aalaha wixii macquula oo anshaxa fanka waafaqsan waa tahay heesahan sida isdaba joogga usoo baxay maalin kasta hees sida lagu arkay baraha bulshada fanaaniin reer yurub hadda ama sweden ha joogaan ama finland ha joogaan ama norway ha joogaan ama german iyo holland ha joogaan oo heese horey looga dhintay fanaaniin dhintay ay lahaayeen iyo hal hees lahaa jiro sax heesahan ma heese ku koobnaay ahaayeen xagga codka wuxuu ka shabahaa buu yiri dheh ciyaarta xagga codka wuxuu shabahaa buu yiri boqorkii codka agaasimo cabdullahi cismaan faarax dhinaca ciyaartana kule waa tahay inkastoo sweden hadda fanaaniin yaryar oo da-yar ay kasoo baxayaan haddana dad magac loo fanaaniinta hadda ku jira soo baxay oo hal hees iyo laba hees lahaa jira heesahan isdaba joogga ah ma kuwa ku kadsanay ahaayeen mase markii aad aragtay rabitaanka bulshada iyo taageerada ayaa si isdaba joog kasoo dhigtay wallahi heesahan waa heese aan diyaariyey laakiin aanan soo bixinin laakiin hal mar ay iga soo baxeen maadaama ay qornaayeen ay diyaarsanaayeen ayaan hal mar waxaan dhahay
bulshada hal mar wax fiican tus waxaad tusaysid wax macquul ah ha noqdaan marka waxaan lasoo shartagay waxaa waaye ama aan lasoo qeyr tagay labadaba oratid u qaaday in ay noqdaan wax aan dadka macquul oo ka dhaadhacsii karo marka in kaloo macquul ahna way soo socotaa watahay laxanko kale markaad samaynaysid miraho kale halkiis meeqay kuu qaadataa wallahi mid waxaa laga yaabaa inay qaadato bil mid waxaa laga yaabaa inay qaadato baryo mid waxaa laga yaabaa inay qaadato midba si waa marka heestii kugu adkeed waqti qaadato manoo sheegi kartaa wallahi ma xasuusto la maxaa yeelay midba waqti bay qaadanaysa aan markaas waqti kolka leemisdhahin laakiin midba waqti bay qaadanaysa waa tahay holan baan rabaa inaan kuga casumaan yiri diyaar ma tahay in wariyaa ku yiri oo cabdiqaadir altasir yahay wallahi meel walba oo soomaali ay ku nooshahay waan jeclahay in aan haddii aan wax wada qaybsanayno war oo ka macno ay tahay fanka waa jeclahay waana diyaaraan u ahay waa ka marka fankaaga ma waxaad jeceshahay inuu Belgium ku koobnaado mise in meelaha kale aad tagto bandhig faneedyada barnaamijyada isdhexgalka bulshada lagu qabanayo haddii ay noqoto Sweden haddii ay noqoto Norway haddii ay noqoto Ingiriiska haddii ay noqoto Soomaaliya wallahi waxaan muujinayaa inaan diyaar u ahay meel walba ay noqoto oo Soomaali ay ku nooshahay oo fankiigana laga jecel yahay lagana xiiseynayo diyaarna waan u ahay waana waa ka waa tahay dad badan oo ku dhaliilaa jira dadka qaarkii waxay leeyihiin ninka hala qabto hala xiro dadka qaarkii waxay leeyihiin ninka waa waalan yahay dad qaarkood aan jawaab ha joogaan ugaasku ka mid yahay ama Axmed Gaas saa u taqaano dadka ku dhaliilo balka war wallahi billahi dad baa dhahay ereyo xun oo soo gaareen dadka dhaliisha soo gaareen maya waa arkay qoraalada Facebook iyo waxaana commentiga iyo waxa ka bixinayaan aan arkay marka dadkaas waxaan dhahayaa aniga dadka wanaagsan ka badan laakiin waxaan leeyahay dadkaasna soo raacaan dadka wanaagsan maadaama oo qof muxaafad wada leh uu soo jiray Xasan Cabdi shaafi muxaafadnimada macquul ma aha in muxaafad la wada noqdo mucaarad iyo muxaafad waa la wada yahay laakiin waxaan leeyahay muxaafadnimada ha lagu soo biiro halees dalkeena waxa ugu soo tagnay mucaaradnimo oo qof walba qofka kale oo mucaaradayo marka saas la adligeed dalkeenana ha noo toos Allah noo toosiyo annagana aas wada muxaafadna hal dhinac wada socono waa tahay marka xiriirka dadka ka waran 3 maalmood ama 5 maalmood ugu dambeysay oo runtii aad baraha bulshada iyo media aad u haysatay wallahi taas waxaan leeyahay waa guul ii soo hoyatay oo dadkii oo dhan ay dhaheen war waxaan helnay fanaan macquul oo sida aniga ila tahay ama ii muuqato maxaa yeelay dadka waxaa soo jiidan karo waxaa samaysay marka aniga taas ayaa iga dhaadhacsiisay in aan wax macquul sameeyay qof la tagayo meelna ma jirto wax xun ama wax uu si xun u arkay waxaan u arkay aniga ra'yi ahaantayda in aan wax fiican sameeyay maadaama aan wax fiican sameeyay dadka laga dhax arkay marka waa ka waa tahay wax fanaaniin abwaano suugaan yahano kula soo xiriirmi jiraan wallahi way jiraan laakiin waxaan hadda aan dadka badankiisba aniga fanka waa ku cusbahay laakiin waqtina waa ku dhex jiraa laakiin waana ku cusbahay laakiin wax aan toos isku maqalnay haddaba ma jirto maxaa yeelay anigaaba waxaan dhahayo dadka waxay leeyihiin war fanaana tahay oo weyn oo caane laakiin hadda anigii hadda la is ogaanaya ma ogiye muddo yar ka hor 3 wiig ka hor isma ogeyn waxaan isku haysta fanaaniinta caadiga oo ha socotada laakiin hadda waxaan ogaaday in aan noqday fanaan meel sare ka gaaray fanka Soomaalida waa tahay habaryartay ubax nacaf waa ku salaamay waa fanaanad taqaan oo kulli umaleynaya gabar kale fanaanada oo reehelnaydina way soo hadlaysay marka waxaan rabaa murtida dad badan waxay aad u hadalhayaan heestan siisanta ina yara dhageysano noo micnayso dadka qaarkood waxay leeyihiin inkastoo fanaanku hadda uu yahay fanaan soo baxay fanaan cusub reer Belgium ah haddana ereyada ku jira qaarkood heestan waxbaa ka qaldan baa la leeyahay aniga aragtaa inkastoo heero fan aan ahayn dadkaan dareen jecel si dadka u maqlaan commentiin waa akhrin doonaa Aways Axmed Faarax waa ku salaamay qeyrre waa ku salaamay reer Belgium agaasimo Cabdullaahi su'aalaha waa weydiin doonaa laakiin waa wixii fanka ku saabsan abwaan dharkeeley waa Cabdiqaadir dharkeeley waa abwaan dhinaca suugaayeen aad baa ku garanaysaa حبيب سنوى سنوات وريب الجمال
سنتا سليق عدي السيس سنتا أنكا سكولي سبيب عانشا مصوص الرفي سيدي هوني سرير ساروا سهل بدنا صفة عاشقا مسيداهي صوّد أبحار السيسي سنتا سليق عدي السيسي سنتا أنكا سكولي سبيب عايشة مسو سرفي سيدي هوني سرير ساروا سهل بدنا صفة عاشقة سمسيداهي صوّد أبحار واتاي مرسل سيسي سنتا أنكاش كله السيسي سنتا سليق عدي السيسي سنتا أنكاس كله ومحاوي warkuu kala yahay markii aan fasiro ujeedada oo أنكاش كله ضد بس كده دوغات والله waa horta erey oo humaag oo ku jiro haddaba ani waxaan bareer u dhahay ma jiraan waxaanu u sheegay waxaanu ula jeedaa in ujeedadeedu waxay tahay waa war dhalinyaro war odayaal ma aha warkan dhankaas loo qaato war dhalinyaro waa fahmi kartaa sida artid u qaado سارت وغادو أنكو شكله شكل السيسي سنتا سليق عدي قبل لو قاضية قبل يقول يسأل واي لو قاضية السيسي سنتا أنكاسو كله ومركو حواي ملها بنبعسو واتاي فانك markii laga hadlayo صح qof kasta han uu leeyahay صح fanaan buu ku daydaa fanaankee jeceshahay ama fanaankee ku daytaa والله فنانين بدن بان جعلهاي إن واحد أنت كسو كوري كرم معها فانك فنان أنك هراي مجرى لكن حواي أون وحن ليه هاي وآدو بدنين وحن سو كوري كرم yaa ka mid ah hal iyo labo ما فنانين تهرب مش فنانين تعصب fanaaniintii hore فنانين تهرب وبدنين وتباع وحسن آدن وبدنين آدو بدنين وجبة إن يا marka iyo kuwa kale waxa mariyay sida Shamali xiisaha xamriga sida isku tiin marka Silva Killer ya xiisaha xamriga sida isku tiin wallahi xamriga hadda heestan dadka midba si u haysta mid wuxuu leeyahay waa hees caadi oo Soomaaliyeed mid wuxuu leeyahay xamri waa marka ilaa jijitankeeda iyo taangaha islee tahay ya marka midba si u dhaxaya watahay laakiin aniga ya inkastoo heera fanaan ahayn sax haddana fanka markaan dhageysto waxaan arkaa laxanka waxaa sameeyey hebel miraha waxaa iska leh abwaan hebel sax muusikiistaha waa hebel fanaan laxankii mirihii codkii isku leh sax Soomaaliya hal iyo labo inaan arkaan jeclahay kuwa kasii badiyana way jiraan waa aragnay yaa ka mid ah kuwa aragtay aniga waxaan arkay sida aan wararka iyo YouTube-yadii wax aan ka fiirsaday fanaaniin badan oo sida uu Axmed Naaji ka mid yahay Axmed Naaji waa fanaanka kaliya la arkay adaa soo labeeya may uu iga sii sitaa wax badan buu sii wataa weli haye wax aad music iyo kala duwan oo sii wataa oo kamankii leh oo organkii leh oo wax walba leh fadlan share gareeya fadlan ha loo share gareeya fanaanka reer Belgium haddaa joogtay Belgium shargaray iyo wadamada kale Yurub iyo dhammaan taageerayaasha fanaanka waayihii faneed fanaan waa fanaan laga daba dhacay Mursal Maxamed Xamud Mursal Faladagan Mursal Afghanistan Faladagan maxaa lagu bixiyay goormaysa ku baxday Faladagan waa magaca fanaanada qaldanay maaha Faladagan waa Faladagan
fala degan faalo degan macnaheedu waxa waaye tafaasiil degan faalo degan jawi degan maadaama aan murti ka hadlayo markaasaan waxaan jeclaystay inaan naanees samaysto aniga isdhahay samayso marka maadaama aan naaneesba samaysanayo waxay iga noqotay marka inaan hadal soomaaliya macaan aan ku sameeyo waxaan ka hadlayno waa murti waxaan dhahay marka tafaasiil degan waa marka tafaasiil degan waxay ka micno tahay hadal murti leh oo degan oo si degan ku baxayo marka sida heesayga aad ka aragtayba waa tafaasiil waa mid walbaba aan ka bixinayo marka heesaha dhan hadda aad qaadaysid waxaan haynaa malaynaa 12 hadaysan ka badnayn oo heesaha si gaar adiga u leedahay laxanka waa adiga miraha waa adiga sax codkii waa adiga dheeshi iyo qoobka ciyaarkii waa adiga musiga aniga ma aha inta kale adiga waa sax muskiistaha aad kaamiristahana ani ma aha kaamiristaha na kaamiristaha dhalin buu leeyahay kule ana hadda qof weya ma aqaan maya qof walba wax walba la dhaliili karaa soo maaha si fiican dad badan baa marka qof walba waxa uu dhaliili karaa marka kuwa waxa dhahayo war codkaaga waa fiican yahay war wuxuu leeyahay war codkaaga ma fiicno mid wuxuu leeyahay midba waxbuu dhahay marka ani waxaas oo dhan waxaan u arkay markaan ra'yi ahaan aan fiirshay intii fiicanne waa fiican yihiin intii xunne inaan waxaan ka habeyn karaa aan ka habeeyaan jeclahay marka waana kaa wata heesaha markaa qaado dib ma isku daawata adiga waa daawada waa jeekima siday ila yihiin maadaama aan sameey waxa marka haddaana jeekimin ma sii dayi karaba maxaa kusoo bax markaad jeekinto wixii inay fiican yihiin aan u dareemo waan sii daayaa oo horeyba usii socdaan wixii kaleetan waa celshaa oo wixii aan ka bedeli karaa ka bedelaa wax qaladaad ma kusoo baxan marmarka qaar way soo baxaan maxaa dhacay marka waxaan ka bedeli karaan ka bedelaya marka meeshii dhaliisha ugu jirto oo ani ahaanteyda laakiin midda dadweynaha ma ka warhayo mid buu ra'yiyo qabaa ilan taas lama tashi karay si fiican marka waa kaa marka fanaaniinta dambe iyo yar fanaanaad si gaar u xiisiisa ma jiraa والله فنانين تدمرنا وبدنيه فنانين بدنا حيسة سيدا إن محمد بيكي إن دل نورشة إن دل نورشة وبدنيه عادي إن تيليارة طبعاً وبدنيه واضح مركا أبوان هذا أتكون أنت هم جرا هذه شخصيا أما كل سحر يدي أما اللي حريرتي والله ما بين شيء كده وحواي أنا أبوان أسكويه لكن أبوان إن الحرير واجع لها عندنا يدو إحساس تاعي واضح heesaha aad qaadid oo 10 ka badan hadda aan hayno kulligood wax la macna kuma jiraan qaarkoodna heesaha waxay ka hadlayaan jacayl soo jiidaso aan ku shukule iyo iyo soo xarako markii la gabadhi xarakoonayso qof kasta inuu ku jecel yahay nin raga sax qayb xajiga u soo xarako adoo qamiiska xiran qofta ku soo xarakoto ما أدري أو دمرك أو ودمرك وإيمانيا ودميني قيبته ذا ولي وأنا ولي فانا ولا فريق ما قدنا على الهجرة وورك ودمينها ولي وحصارك وصعد هروسعد بعمر ذا مركا هروسعد كيك هلا سوق وقتها مصبل اللي بدل وقت سلامني هبري وقت سلامي نستعاش أغلن إندي جوكتا الله كعافية أو لعف ماذا جوكتا وحبرشة قبل السودان هذا كل الدول أفريقيا دن هذين نقطة السودان هذين نقطة يوغندا هذين نقطة إثيوبيا هذين نقطة كينيا هذين نقطة رواندا هذين نقطة بجنبو ما هذا كل الدول جيبوتي تتبع أساسه سؤالك شو يدينيا إن على لبسك صح وملا وبدل ضلك إيش سؤال ليه إن على لبسك مرة قارو حاجة ذا السود كوريها وذا قاد وين فنان إن على لبسك كور ما دتك جي كمان جرا ما مرحلة هيست وعي جلس عطاه قيمة مثال ما دام سواء حركوا يننا بدونه وعاك يستأذكر هذا الشيء يو ساسو بهالك وين شارك سودك والله كاس وحواي كو سويدين له معهن وحواي حرقوا ماشي قدام بيسي يعني إذا مريسا لين وحن ماشي لسه استاجيا ور معقولة ماشي لسه استاجيا مركتاس ماشي شاسي مريسا عبد الله حجي أنت بكو سلامي ورأت والبر عروسكي قفة أصلها والله ما قاسمها بالله ونعروسي هو غير مقدشة وكتمينا إن شاء الله تعالى واضح عدي معقولة عن الله كتمينا وحاجر فنانين غير بالجماعة إن كستولي هذا فنكا ما فنانين تفعل حنبا كله دحير آدي يسكو حسدان فنانين تريب بالجماعة والله فنانين ويجو كتاب ودنك لكن
ismaba aragno fanaaniin badan inkastaysan joogin inta badan way cusub yihiin wata wax oo qadaamiya aniga le ka jiro wadanka waqti badan joogay oo fanna ku dhex jiro laakiin wax kaloo weli oo ma arag aniga gaar ahaanteeda fan ku dhex jiro haddana joogo wadanka ila joogo laakiin waxaan arkay fanaaniin badan oo hadda la imaadeen wadanka ku cusub haddana fankana meel fiican ka wado غير صوعين لايف بان ku jirnaa inaan live ku jirno wajaa telefonkeena naga soo wacay waa problem wata غير صوعين live baan ku jirnaa Xasan Cabdi Shaafi ugaaska wareeb waa ku salaan ugaaska inkasto Cadnaan Xaaji Abti waxa kamid tahay dadka labiska su'aalaha ka soo dhiibtay su'aashada waa weydiinay برهان wuxuu leeyahay qabiilkiisana weydiiyay burhaan mawduuca qabiilku masalaysna waa fanaan meesha hore ka yimaada qabiilku raba ahaado fanaanimadiisa ku tixgelinaa warku waa lagu soo koobo waa reer Hiiraan haddii qabiil arabtina Allah si ka yaalo sixirti gaar bay noqonaysaa dadku soo wacmi jiraan gabdho rag dhalinyaro caruur walaa dad badan baa la soo xiriiray aad iyo aad oo badan marka intii macquul ahna war fiican aan isdhaafsanay intii kale tani ma ba ismaqlin wata London goorma imaanaysa kulli aan xaaji oo shuu ku qabanaysa walaa goortii macquul ahaan jeclahay inaan meel walba oo aan shuu ka diyaari kara aan ka diyaariyo wata ugaaska Cabdi wuxuu leeyahay Saciid Kambala الفنان MM حبيب وفنان لحميست موسيقيا تاسو اقرسنا هي سعيد كمبالا وفنان inkastoo fanaan daayay isma aqoon u leeyahay fanaan sarto si fiican isku naqanaha tababar buu baahan yahay wallahi waa fiican yihiin horeha u sii socdaan hore socodha sameeyaan wada hada hore aan wada soconna dhamaanteen heesta xigto oo aad heestan ugu dambeysay habii hore soo baxday kac jecel bal wax yar ugu luqay waa maxaa waa jecelka in loo kaco haddii la hurdayo xitaa hurdada laga kaco oo aan u kacnaa jecelka la iska kiciyo jecelka maxaa yeelay marmarka qaar habeenkii la isku soo maaxdaa oo jecelka kugu soo maaxana marka jecelkana habeenkii maalintii mar waliba waa uu shidan yahay marka habeen imaalin loo kala harnaa leeyahay jecelka loo kaco waata ubax Saciid waa ku salaanay from Mareykanka Bureeq Qarni waa karanaysaa fanaanad si fiican Bureeqo inaan noo timaadaan jeclaan lahay Belgiumka Bureeqo waa salaamaya maadaama hadda qorshe uu isla qabanayba شو قبتين صح ما شاء الله شو يهرا وقبتها جرا صح واتحي فنك انت كو جرت قولي يا بنات قول انه شيء كتا والله وحلا يا انا يا معرك وحلا يا معرك كوف فعلا كوف فرحه بنات و سدح اسبوع ولا صدف فرحت هاي ما كوف فرحه ماشان ربان غاري فنك ماشان تكغاري قولي وأنا واسدهي هذا وهري وأسعد لكن وحن دهي مدام قلقل عن أركي ومحاول دردر دي عمل بينه وبين دردر ولا بدنا شعب كده كعسن باركي ودكي وصو كعسن هاي مركب فيسبوك يدي ميديا دينا أول ما نقطه مركب واقع يعني وقتها مركب فيسبوك يلا سميستانك ما يوحش ترب بدن مرسل فلود دقان وحس خالد واي إن هل أنا وحنا ليه وناجح هلا فيرشو إن مجري جام حبل لقوا سميسن إن دنك وناجح وحكي أرجنا من أكسي السوق جديدنا وحنا ليه ولا ليال يعني مجري وحنا لقوا سمين إن مرولي بنا وان أكسنا يا يقدر نرى هذا ابنها يا أكنا وهذا هداية قبيلة جديدة هي كل هذا هي هل هي اسمه قادسة إذا هيسها جعيل كل قضاء يقيب كله أبوانك فنانك لحميستها ورينا وقدرنا لا فهمتي وريه وتمشي ورهدا يقدر تعملها وعسلانية أو برنامج يقدر مع عسلانية وريها ولا أكاو أدم كو إيمانية مركها واتها هيستان كوبكني كذا واشين ما يستحركوا وهاي فضل ليفن تذكر هيب بالجيم تليفون كان مدوبي واكو سلامي في السؤال على ليفن موسى ويدي وكاغا جوابينا يسمو كفرنا
وكع كوكني كذا مداوم زمان وكع كوكني كذا فضلا تلافك اللي قد آية تلفوننا اللي سوى عبلوان صارينا والله وعرب هذا حركوا حركوا حرموا يسو حركوا الجبال وسو حركوا حب الكيسة وسو حركوا حفظات الجهل وسو حركوا حنانا دبيه سو حركوا لساتانو سهر في الشغل لك وسو حركوا حفلة هيسة بدن وسو حركوا حرير روز حمر وسو حركوا حكمتي حط أغال حجيبة وصو حركو حقيق دي حرم تجعل وصو حركو حال الدفوت حاز معان حليمو يصو حركو حريتي جنة حبي دوني دا حليمو يصو حركو حال الدبوت حاس معان حليمو يسو حركو حريتي جنة حبي دوني دا حليمو يسو حركو حبي الكيسة وسو حركو حفيظة دجال وسو حركو waa tahay qaybihii gabagabada ayaan ku sii dhawaanaynaa waqtigu uu nahayaa salaad waa soo tukanayn haddii Allah uu dib raali ka noqdo ciidid cali salaad oo ku salaamay walaal sare burhaan cali salaad oo ku salaamay cali salaad soo batay waa salaamaya taageerayaasha kamid yihiin waa taageerayaasha waxaan leeyahay cabdiqaan cali salaad waa diyaa cali salaad oo dhan waa salaamaya aqoon bay leeyahay cali salaad wallahi waa laga yaabaa laakiin aniga hadda ma xasuusto نستيح شغل قبل لي بغردي قروحنا الله كوزايد قروحنا ها بغردي قروح سلامي نستيح شغل وسلامي يا إداي قبيلة الديد فيه هيران قلنا آدي كوزو سلامي فيه هيران هسي حتى هيران هس مقادة هوا بتاع نقول له أنت نقول فن هست هيران وحواي هست هيران حكار لي سهست جعلوا جعل أو قبر aan ka jeclaaday gabarta aan jeclaaday waa fantasy laakiin waxa waaye qiyaali waa heestiya hadaba saas u ogaa qiyaali waxa waaye dadka qaar inaysan aqoon erayga laga yaabo qiyaali waa mala awaan waa wax dhici kara waa si fiican marka waxaan dhahay himilada ku raacdo hamigayga waa adi had iyo jeer adbay horjoogo layka horkeena hanti maalinkii helo loo hibeeyay baan ahay haddaad hanato hadal macaan heesaan ku hormarshaa hanti maal ninkii loo hibeeyay hanti maal ninkii helay hanti maal ninkii helo loo hibeeyay baan ahay haddaad hanato hadal macaan heesahan ku hormarshaa marka waxaan ku faanayo waa hadal moogi wax kale ma hantideedu waa hadal ilaan murtimaal baan ahay murtimaal hantidaada waa hadal hantideedu waa hadal marka waxaan dhahay hiiraan baan kaa helo hilow baan ku hayaa hogaankii hablaha toharaad baan ku qabaa heshiis baan kaa rabaa inta kala dhameystiro waata waa dhageysan heesta reer hiiraan baan dhageysanaa gabadha hiiraan u qaaday gabdhaha bay dhaba iyo mudug waa soo socdaan hadda soo wada gobolada kale waa soo socdaan
hamigayga waa adi had iyo jeer aday hor joogo leyka horkeena hanti maalinkii helo loo hibeeyey baanahay haddaad hanato hadal macaan heesahaan ku hormarshaa himilada ku raacdo hamigayga waa adi had iyo jeer aday hor joogo leyka horkeena hanti maalinkii helo loo hibeeyey baanahay haddaad hanato hadal macaan heesahaan ku hormarshaa waa tahay goormaad kugu dhalatay ama ogaatay inaad heesi kartid waa su-aal gabar fanaanad baan soo jaabirirtay ah oo waxaan ficilagaada degan holan wallahi adi muddo dhowr sana in horta waxaan isku taxalluujiyey inaan hees curiyo waxaa waay 2000 iyo wisheedii ahayd ma aqaan ma xasuusto waqtiga ka ahayd laakiin 2000 wisheegii ahayd waxayna aan heestii ugu horreysay oon studio aan tago oon kusoo coday waxay ii suurta gashay iyadana inta ka horreysay waa iskaga dhex jiro waa isku dayo waxbaa iska qorqori jiray laakiin waxay ii suurta gashay adiga 2013 inay helaan jeclaa waa tahay hees lamaana ah oo gabar fanaanada ay kugula jirto goormaa jeceshahay inaad kusoo luqayso waa su-aal cadnaan hadda ma soo weydiiyey wallahi waa jeclahay laakiin ilaahi hadda gabartii diyaar u ahna waa ila soo xiriiri kartaa anne diyaar baan u ahay anigane inaan raadsado anigaabaa jecel kuwaan raadsadana inay iga aqbalaan anaa jecel kuwii ila soo raadsadana inaan iska aqbalnaa cabdullaahi xaaji waa maqlaysaa kulle adaa ree antiwarban ah isna waa ree antiwarban ban ah waan isna qanaa sax insha allah waa keen anagaa keenina gabadha kule jilin kula jilladaysa wallahi waa arkaynaa dhinac walbaba ama fanaanad ha noqoto gabar walba Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed oo ogol inay jilinku wax ka noqoto waa tahay maxamed xasan bashle oo ah wariye jarmalka jooga uu ku saamaya leeyahay fanaanka guusan aad wuxuu uga mid yahay dadka baraha bulshada runtii kaaga faalooda wuxuu soo qoray xalay fanaaniin badan oo Yurub joogta hebel afra gabar liidada ma aqaan anaga waa heesida marigista ugu cusub tahay yar kale jooga Finland sax magaciisa iga maqan asna oo hal heeso lahaa waa garanaysaa umanaya magaciisa magaciisa ma xasuusto magaciisa waxaa la soo qoray wuxuu yiri hebel iyo heblaay hal heesay leeyihiin mursal oo 5 week ama 5 maalmood joogana wuxuu leeyahay wax ka badan 10 hees ridwaan cabdi gudoomiye oo ku salaamay madaxa ginti reginti taageerayaasha ugu weyn ginti ridwaan waata weli waa gabagabaan ku jirnaa heestii si sintaan uga bixi doonaa وجد مرنا ما يحسن شيء كل واحد مرنا واتا وفنان داير مرسل محمد حامود فلودغان oo maalmahan baraha bulshada aad u haystay mursal oo shalay guriyal ay kamid tahay wariyaha weyn amina musuuliya aad kaga hadlaysay qoraal oo dhaysa ninkan waa komikiste master binki Soomaaliya way tiri والله مستبين وهدان أقرصده وحوا مجاجليستني ومحصل بين شعترية أنيقا هدبا إن تاسو حكا لي هاي إن آمينة موسى وحان لي هاي ولا سيوال با هذا الكلودي قبا مرودي قوا مهتنتاي لكن أنيقا وحان هاي قفلاني ما يقول جدد دوا فهمي لكن إن لو دي رجليو إن الواقع صح إن مركا وحان لي هاي أنيقا آمينة موسى جروجوب إن مدى كالي wanaag hal wada fiirsho in aamina mid igu dhimana waxa meesha aan ka dhahayaa in walaal waxa jirto majaajilista ani shactiroole waa ahay laakiin shactirooleygu waxa waaye fan waaye wax walba fanko dhana shactire dhinac walba shactiro ka noqdaa fanka horta dhinaci loo jeeday dadku waxay u yaqaanaan in hadal bis loo shactireeyo codka macaan iyo jeestada iyo xarakada iyo waxaan dhan waa jeesta isku dardarsan waaye oo mushakal ah marka mushakalkan looguma baran dadka badana dad dhif ma ogiye
marka ana mushakalkayga hadda soo batay mushakalkayga waa wax dadka soo jiitay marka mushakalka sidai aaminaba sheegtay yaan si kale loo qaadanina sida saxda ah loo qaato waa tahay wariyaal kale oo dul yar uu ka mid yahay agaasimaha home cable ee muqdisho isna xalay bartiisa facebook waxyarka ay soo qoraan arkay fanaan laga daba dhacay maalmaha qabsaday waxaan leenahay isna waa salaaminaa kulle cid kastoo doonaysa xiriirkaaga annaga u fududayna hadduu alla idmo hadday soomaaliya joogto hadday joogto belgium hadday joogto wadamada kale oo yurub maxaa jeceshahay marka dad badan oo soomaali baa ku daawanaya dad badan baa ku daawan doona kuwa heesahaga daawadayaa jira maxaa is dhihi kartaa dadkaas waa u sheegaysaa waxaasaa iga dhacay saas kama wadin aad dhihi kartaa dad badan baa ilaa kusoo wacay teleefonada inaad damisaa ii sheegtay ma daminta marmarka qaar way dhicisay markaan seexanayo kale ilan dhicitaanka iska dhacaya wacan xaaji xasan waa ku salaanay walaa rajul dhan ku salaamay xasan cabdi shaafi ugaaska fanaanka taageer propagandada iyo hadalada qaabsan ugaaska aad ka wadid fanaankana George ugaaskina taa ku salaamaya waana wada xiriir doonaa duu alla idmo qaybihii gunaanadkii gabagabadii aan ku jirnaa raali ahaada dadkii aan arki weyno su'aalahooda hanaga raali ahaadaan xumaan nagama ahan wixii fanka ku saabsan mawduuca ayaan ka hadlaynaa maxaad leedahay maxaad u jeedinaysaa waxaan leeyahay waa inaan hor u socod sameynaa oon meesha aan kasii wadnaa dhammaan taageerahaygo dhan wata marka inaad fanaaniin yar soo saarto diyaar mu tahay fanaan inaan soo saaro wallahi waa la iska gacan qabtaa aniga inaan gacan qabta dad ma diidanin soo gacan qabto ma jiraan aniga waxay soo gacan qabtay waxaa waaye aniga iska gacan qabtay cid ku gacan qabto ma jirto fanaan wallahi ra'yi waa helay laakiin wax oo kale wax aan ka qaaday waxaa ka jira muusikista oo aad ii gacan qabtay wata muusikista aad baa loo amaanay xalan waa ku sheegay maantana waa ku sheegay waalin wallahi muusikista aad baa loo amaanay sax meelaha heesaha aad ku qaadid oo kale ma halkaan magaalada ku qaadaa mise magaalooyin kale wadamo kale tagtaa wallahi magaaladan joognaan ku wada qaada heesaha dhan hay meel qurux badan adigoo taagan meel wabiya adigoo taagan bad adigoo taagan marka waxaas oo dhan waxaa waaye wax aan ka fikirin marka horeeto aniga iyo akhyaarta kale ee programka ila waday oo ila diyaarinayay oo saaxiibaday oo ra'yi ahaan ina hagaayay dhinacna iga hagaayay xagga jilinka iyo actionka waa tahay labiska intaba labiska dada saxay waa leela saxay ani keligii ma ahayn waa tahay ridwaan waa ku salaana mar kale walaalkay maxamed cabdi cali heesaha maxamed cabdi cali dadka fanaa facebookyada kamid baraha bulshada aad heesaha ugu kamid ahaa runtii shantan maalmood ama isbuuc u dambeeyay waxaa ku noqotay qofkii ugu hadal haynta badnaa marka laga tago olala kaloo facebooka ka socda oo ku saabsan fanaan reer muqdisho oo dayaxdan nolosha la yidhahdo iyo daar calasu ka dhexeeya kulli waa la socotaa maanaa wallahi wax waa kala socdaa sax maxaad leedahay maxaa kula talinaya maadaama daar calasu uu yahay nin wariye ah abwaan ah fanaan ah heese badan soo saaray dayaxdan noloshana uu yahay nin fanaan ah oo taageero badan leh ya laakiin dadkii soo saaray daar calasu kow uu ka yahay sax maxaa soo jeedinaya rugub baa jirta waxbaa ka dhexeeya labadooda wallahi hal isfahmaan leeyaa dhalinyara la wadayaa dad waxgaradna waa la wadayaa maadaama ay dad murti ku wada jiro yihiin waxgaradnimo oo dhan ma jirto marka inay isfahmaana fiican oo dhanka wanaagsan ay wax ka wada fiirshaan ani intaasaa soo jeedinaya waa tahay waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabayno heestii jeclaan inaan kusoo gabagabay maanta ilaa adigii fanaanka adan been waa u bogey been waa muku bahasha been waa u bogey ha been maxay ka turjumaysaa marka heestaas in baashaalka baashaal ka turjumaysaa waa tahay heestii ugu dambeysay ayaan guda galaynaa kadib fanaanka waa fasaxayna haddii allah wadi raali ka noqdo sorry waa tahay waxbaan saxaynaa yar we love you uu yidhi nin baa kule we love you wuu ku salaamayaa abwaan mursal sujuud
reer Sweden waa abwaano badan oo nolosha xiriira jira السلام يا بونا لما تود قفل يبا عليه هاي برنامج في عنا كويس كوي ماذا الله نقديه وأنا يمود السلام يا موسيدو وأقسم صاحب إنجليزكا مشكلة قطر قالوا معايا waxaan yara jecelnahay inaan intaas kusoo gabagabayno barnaamijkeenii waa saaxiibkiin maxamed bashiir xaashi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo kulanti dambe inta barnaamij lamida barnaamijkan fanaan mursal maxamed xamud mursal faldogan aan ku wareysan doono qaybo kala duwan ayaa jiri doona meel meeshan ka baxsan ayaan ku wareysan doona haddii allah awood leh uu raali ka noqdo